السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخياري وأن سلام دمانتين ميلك سو أدونك دافيسا كجوكتان خيار إسو الله بشي وناكسن ما أنتو حان ربائنا إن لو وداقو شيء آد وحيسا بدن ويعني دادك إن بدن إلا سو حريري وما أركتي يعني عبشا بدن أيا إسكا جرتا أو كسابسن دنك فيسبوكا ساس درتد أيا وحان أباديا عشرة فيسبوك كسابسن ما أنت تن ugu muhiimsan oo li soo weydiiyaa waxay tahay niyo Facebooka in badan ayaa dad waxayna dhahaan waan laga jabsanayaa Facebookaga waa jabsanaynaa Facebookaga saas waaye Facebooka la jabsaday ayaa maqlaynaa sidee Facebookgayga securitykiisa aan u adkeyn karaa ayaa su'aal ii weydiiyay in badan ayaan discuss gareeyay oo aan raadiyay maanta ma aragt in la wadaago aan rabaa oo hadda kadib wax cabsi aadan ka qabi doonin haddii aad isticmaashid baalkan borjin fursadan aan yani kula wadaagi doono hadda isticmaashid ma dhici doonto in Facebookaga ciyaar lagu qaato ama anke haddii Facebookaga passwordkiisa iyo emailka ku isticmaalisay haddii laga qaato xataa qof uu ka arko ma isticmaali doono maanta shaygaasi wuxuu yahay wax la yiraahdo code generatorka wuxuu ka caawin doonaa waa shay u dhaxeeyo adiga iyo shirkadda Facebook qofku ma ogaan karo ilaa iyo ina adiga aad siisid maahane code generatorka wuxuu ka caawinayaa ina Facebookaga uusan qofna kula isticmaalin hadduu aan ka helo passwordkaaga iyo emailkaaga qofku wuu ka xadi karaa uusan ka qaadan karaa marka maanta waxa waaye arintan shaygan aadka u muhiimka ah baan rabaa inaan la wadaago fadlan hadda channelka ku cusub tahay subscribe saar si aad noola socotid haddii aad u baahan tahay wax faahfaahin dheeraad ah please waxaa nagala soo xiriiri kartaa nambarada iyo email iyo Facebooka shaashada ku qoran marka saa cashirkeena u ambaqaadno fadlan nala soco kood hore waxaad tegaysaa Facebookaga meel alaala meesha ku yaalo Facebookaga markaas aad u soo gashid oo Facebookaga ku soo furmo waxaad tagaysaa meeshaas ay ku qoran tahay saddex xariiqin ay ku qoran tahay oo calaamada ay tilmaamayso ayaa tagaysaa saddex xariiqin ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay setting and privacy aad tagaysaa setting and privacy markaad tagtid kadib waxaa soo furaysaa settingka ayaa soo furaysaa settingka markaa ku dhufatid waxa waaye meesha ilaa waxa rabtaa inaad Facebookaga يعني ده إن الولا استعمال ساس درتي با عشر كان ugu talagalnay dadka isticmaalaya oo Facebook aad ku isticmaala dad ba Facebook lacag ka sameeyo Facebook ciyaar maahan dad ba lacag ka sameeyo oo bilowba reerooda ka biisha marka Facebook waxa laga yaabaa Facebook yani de inta badan waxa la jabsada Facebookyada la raadsado waxay tahay Facebook muddo badan samaysan dad ba waxa laga yaabaa Facebook inuu u samaysan yahay 15 sano 12 sano 10 sano dad inuu sameeyay laga yaabaa Facebookyadaas bay u badan tahay in la jabsado because waa Facebook yani de aad u weyn marka waxa sameynaysaa waxa soo furaysaa meesha ay ku qoran tahay security and login soo furaysaa security and login marka soo furtid kadib waxa tagaysaa meesha ay ku qoran tahay use two factor yani de markaas waxa isticmaalaysaa code generator rabnaa inaan maanta ku xirno taas waxa ka bilaabana code generator inaan ku xirno ayaan rabnaa hadhowdi koodhkaaga see u helaysaa dib baa ugu soo dari doonaa hadda waxaan ku xiraynaa code generator see loogu xiraa Facebooka kadib waxaad tegaysaa use two factor ayaa ku dhufanaysaa two factor markaa ku dhufatid kadib waxaa sii dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay text message ku dhufanaysaa marka text message aad ku dhufatid kadibna waxa leedahay continue aan leedahay wuxuu ku leeyahay number ku xiro number ku darso adiga hadduu number kugu darsanayn waxa leedahay add number oo yani de number saan ku soo qoraya hadduu asan number kugu darsanayn kadib waxaad gelinaysaa numberkaaga adiga aad leedahay ani numberkayga markaa geliyo waxa waaye 1891 numberkan waaye numberkan waa number oo Bangladesh waaye marka numberkan aad ku dhufatid kadib dhan baa leedahay kadibna waxa leedahay confirm ayaa leedahay marka confirm dhahdid wuxuu ku leeyahay
code ayaan kugu diray sidii loo confirm gareeyo content ku xirashadiisa saa confirm u dhahdid code buu wuxuu kugu dirayaa yani emailkaaga oo yani wuxuu kugu dirayaa numberkaaga marka waxaan tegaynaa numberkii ayaan tegaynaa inuu code noogu soo dhacay in kale waa kaasa codekaas ayaa noo soo dhacay codekaas ayaa noo soo dhacay marka codeka waa kana codeka copy baa soo leedahay copy baan leenahay kadib marka aad copy karaysid waxaad tegaysaa meeshii ayaa tegaysaa kadibna paste ayaa ku leedahay paste ayaa leedahay kadib continue waa sugaysaa cabaar yar ayuu wareegayaa markaas kadib wuxuu kuu soo leeyahay waa aqbal kadibna dhan baa leedahay okay saas ayaa kugu xiran yahay code generatorka waa ku xirata waa kaasa meesha ay ku qoran tahay your security method meesha ay ku qoran tahay kadib waa ku xiratay code generator saas kugu xiran yahay marka sidee ku helaya codadka waxaa samaynaysaa meeshan ay ku qoran tahay recovery code meeshan ay ku qoran tahay ayaa ku dhufanaysaa kadibna waxaa helaysaa codadkaagii oo dhan meeshan 10 code baa kugu taala 10kan code waaye waxa kaa difaacaya hackeriska iyo dadka facebookkaaga inay jabsadaan rabaan shay kaa difaacaya waa 10kan code hadda adiga u baahan tahay codadkan waa isticmaalaysaa marka codadka aad isticmaashid way dhamaanayaan midba mar hadda isticmaashid waxa waa lagu xisaabinaya 9 code baa ku harta lagu leeyahay hadii marka codadka aad dhamaysid waxa samaynaysaa meeshaas ay ku qoran tahay get new codes baa ku dhufanaysaa marka get new codes aad ku dhufatid 10 code cusub buu ku siinaya hadana marka codadkan waxa samaynaysaa waa copy karaynaysaa copy ayaa leedahay marka copyaysid kadib waxa gashanaysaa meeshii adiga is leedahay codadka waa gashan kartaa is leedahay baa gashanaysaa kadib ama waxa samaynaysaa screenshot baa ka qaadaysaa dhag Facebook mobile halka gashanaysaa marka meel allaala meeshii inaad ka gashid Facebook aad rabtid wuxuu ku weydiinayaa code adigana codadka waa haysataa codekaada gashanaysaa marka codekan hal kamid ah soo qaadanaysaa waa gashanaysaa kaba soo qaad Facebook waxa ugu jirtaa aalada hadda aan ka galno kale Facebook aan uga jirno waa uga jirtaa marka waxa damacday inaan Chrome-ka intaad gashid ama browser kale aad gashid Facebook-gaaga ka soo kicisid marka meel kale aad ka galaysid wuu ku weydiinayaa wuxuu ku leeyahay codadkii aan ku siiyay mid kamid ah ayaa lagaaga baahan yahay buu ku leeyahay code ayaa lagaaga baahan buu ku leeyahay marka 10kii code ama aad meesha ku copyisay ama maaragtay aad screenshot ka qaadatay mid kamid ah ayaa soo qaadanaysaa kadibna waa gelinaysaa saas oo Facebook ugu soo furmaya marka hore waa inaad emailkaaga iyo passwordkaaga aad gelisid markuu Facebook ku soo kici lahaa meeshuu Facebook kaaga soo kici lahaa ayuu wuxuu ku weydiinayaa code ay hore ka weydiinayaaba codekana 10ka code aad copyisatay oo meel xafidan aad gashatay oo qof kale aad la wadaagin kadib codekaas mid kamid ah ayaa gelinaysaa uu ku soo furmi doonaa marka sababta ay indhahay hadduu qofka uu helo passwordkaaga iyo emailkaaga hadduu helo ma isticmaal karo sababta ay indhahay waxay tahay haddii adiga codadkan adiga aad haysatid oo aadan qof kale aadan la wadaagin marka qofkaasi ma awoodi doono passwordkaaga ama Facebook yani emailkaaga uu helay meel kale inuu ka furto ma awoodi doono marka yani wixii faahfaahin u baahan tahay waa nala soo xiriiri kartaa Facebook-ga iyo numberka ku qoran shaashada ayaa kala soo xiriiri kartaa marka waxaan u malaynayaa dadka ka cabanaya Facebook-ga la jabsaday iyo Facebook-ga saas la yeelay iyo inuu caawin doono code generatorkan oo maanta in la wadaagay waa fursad aad u macaan oo aad u cajiiba marka haddii marka videogan intaas ku soo gabagabaynaynaa haddii please channelka ku cusub tahay si aan noola socotid videoyada iyo waxyaabaha kale oo xiisaha badan aan soo wadno si aan noola socotid please subscribe share la wadaag saaxiibadaada oo u baahan inay wax ka ogaadaan rabaan Facebook yani xooga cabsida ku jirto oo Facebook aan halka jabsadaa iyo waxaasi dadka ku dhahaya dad aragtid fadlan la wadaag videogan aad buu caawinayaa si u bartaan code generatorka si Facebook-gooda safe ugu noqdo intaas ayaa ku soo gabagabeynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.